soo dhaweynayna maxadkan maanta curdinka ah ardayda ka qalin jabisay waxaan ugu baaqaynaa dadka maadaragtay diinta danaynaya inay iyaguna ka soo qayb galaan oo sharcigooda bartaan sida macallimaduba hore ugu sheegtay munaasabadani ayaa ahayd xafladda sanad dugsiyeedka 2023-2024 ee maxadka Baytul Macmuur ee magaalada Boorama ardaydani oo dufcaddii koobaad ayaana dhan 50 hablood oo la barayay culumta shariicada islaamka oo ay dhiganayeen muddo gaadhaysa hal sano waxaanay ka qabsoontay isla hoolka maxadka waxa kala soo qayb galay culimada haweenka Boorama waalidiin aqoonyahan iyo marti sharaf kale ugu horreyn waxa halkaasi ka hadashay Deeqa Cali Cawaale oo kamid ah maamulka Baytul Macmuur qaybtii macadka oo Baytul Macmuur ayaan joognaa waxa ugu horeysay xadaanada ee ilmuhu noogu imanaysa ama gabadhu ay noogu imanayso 4 jir iyadoo ah ama 5 jir iyadoo ah halkaas aan ku soo barbaarinayna oo ku soo qaadanaysa duruustii hoose ee iyada ku haboonayd dabadeed markay taa ka soo gudubto waxay u gudbaysaa wax la barto wixii ugu qiimo badnaa kalaamka rabbi ayay u gudbaysaa waxa u diyaara xifdul qur'aan oo noo diyaarinay oo xifdiyaysa hadii ilaahay yiraahdo xifdi dabadeed daayarta maxaa u diyaarsan uu Baytul Macmuur u diyaariyay wuxuu u diyaariyay macad buu diyaariyay oo ku baranayaan gabdhuhu luqadda carabiga ay ka tahay iyo shariicada islaamka dhamaanteed intay ilaahay ugu qadaraba laga barayo laakiin waxa uu awlaa luqadda carabiga qofku haduna luqadda carabiga uu ka dhisnayn ma baran karo diintiisa waxbana kama akhri karo waxbana kama gaari karo maxaa uu aas-aas u ah inuu qofku barto luqadda carabiga ayaa aas-aas u ah waxa ka kabaya ee luqadda carabiga qofka ka kabayana waxa weeyaan macadka iyo inuu qofku barto uu xoog saaro maxaa macadka markuu dhameeyo maxaa u diyaara oo qaybtii afraad ah waxa weeyaan cilmi xalaqaad oo lagu maxandhaday qofka uu gaadhayo ilaa halkii ugu sareysay kitaab walba uu ka gaadhayo waxaan iyaduna ka maqnayn oo iyaduna meesha ku jirta qaybtii cunto karinta iyaduna waxa weeyaan gabadhii marka dhinac kasta laga soo dhiso waxa u baahan tahay xagga madbaxana in laga dhiso iyaduna waayo awalan madbaxun bay ku dambeyn doontaa insha Allah oo reerkayga iyo carruurteeda ay u diyaariso cunto fiican iyo wax wanaagsan ay u diyaariso qaybtaasina way noogu jirtaa intaasi waa intii loo diyaarinay haddaan nahay Baytul Macmuur da'yarta waxaan meesha ka maqnayn oo iyaguna ku jira gabdhaha maxaan dhahday roon hooyooyinka maxaan macadku soo dhaweynayaa uu u furan yahay iyagana diyaar baa loo yahay waxaan idinku bishaaraynaynaa hadaba inuu macadka u qaadanayo sanad dugsiyeedkii cusba oo macadku ilaa muddo u shaqeynay dhowr sano haddana qaybtan waa qaybtii ugu horeysay macadka waxana uu nasiib u yeeshay ardayda maanta ay soo hor fadhida in sanad dugsiyeedkoogii lagu kala saaro ay in badan wax soo akhrinayeen ay in badanna maxaan dhahday ay ku jireen socod iyo dadaal ay ku jireen qof walba maanta isaga ayaa wuxuu soo shaqaystay halka ka qaadan doona waana u hambalyeynaya hambalya baa idin leeyahay dadaalkiinii iyo intaad soo wadeen marka muddo sanad ayuu u furan yahay sanad dugsiyeedkii hore ayaan ka qayb qaadanay oo la furay macadka marka hamoogaanina oo ha ka maqnaanina baa idin leeyahay dhamaantiin inta kadibna hadalka waxa iska daba qaatay mas'uuliyiintii kala soo qayb galay xubno kamid ah ardayda iyo macallimiinta كم أحكام الإسلام وما هي أحكام الإسلام 5 وهي الفرض والسنة والمباح والحرام والمكروه ما الطهارة هي فعل ما لا تصح الصلاة إلا به كإزالة النجاسة والاستنجاء والوضوء والغسل والتيمم ما وسائل الطهارة وسائل الطهارة الماء والتراب والدبغ والصابون على من تجب الصلاة تجب الصلاة على كل مسلم بالغ وعاقل ما حكم صلاة الجماعة
أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. معهدك بيت المعمور laga furay qaybta sare waa maaragtay markiisa qaybta sare waxa leenahay difcadii ugu horeysay ma sha Allah tabarakallah xafladeedii baan u fadhinaa waxaan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay gabdhaha wanaagsan ee dhalinyarta ee waxbarashada qiimaha badan leh la baray waxa weeyaan qofka bini'aadamkii inuu horta diinta Ilaahay barta aad iyo aad bay muhiim u tahay qof ardayda sharafta leh ee ka qalin jabiyay culumta sharciga maxadka baytul macmuur soo dhaweynayna maxadkan maanta curdinka ah ardayda ka qalin jabisay waxaan ugu baaqaynaa dadka maadaragtay diinta danaynaya inay iyaguna ka soo qayb galaan oo sharcigooda bartaan sida macallimaduba hore ugu sheegtay جمع ذكر سالم ماذا يرفع ماذا ينصب ماذا يجر يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. جمع المؤنث سالم ماذا يرفع ماذا ينصب ماذا يجر يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة. برناي فقهي ما شاء الله تبارك الله بارك معلمين تيالي oo si fiican loo soo dhiirigelisay oo waqti badan la gelisay ilaahay waxaan uga barayaa miisaanka xasanaadka in ilaahay ku daro ama hadle ilaaha nabad isku keenay anagoo wada nabad qabna dhamaan marti sharafta aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan aad u salaamayaa macallimiinteeda sharafta leh ee hiiliyo hoobana la galb istaagnaa diinteeda inaan barano waxaan kaloo mahad gaar u naqayaa ardayda qaaliga ah sida la rabay u yimid maxadka ardayda kale ee doonaysa inay diinta dhigato waxaan leeyahay gacmo furan ayaan ku soo dhaweynaynaa anaga iyo macallimiinta iyo ardayduba. خذ قيادتك لماذا خلق الله تعالى دليل خلقنا لعبادته والدليل قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لماذا أرسل الله الرسل أرسله الدعوة إلى عبادته ونفي الشرك عنهم والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فقد وين محددة كله ومحد loogu talagalay dacwi qayb dacwadeed oo kale in dadkii lagu faansiiyo cilmiga diiniga ahaa kutubti baa loo dhigayaa axaadiistii baa loo dhigayaa waxa inta u dheer mawcido iyo waano dhalinyartii lagu waaninayo marka akhlaaqadoodii aadaabtoodii dadaalkooda dheer ay sanadka ay soo wadeen ardaydaas yaani waxa weeyaan markii sanadka bilowgiisii ardayda la qoray ma sha Allah tabarakallah ardaydu waxay ahaayeen arday waxbarasho u baahan laakiin ardaygu macallinku kuma shuba ardayga ardaygu juhdigiisa iyo dadaalkiisa ayuu wax ku keenaa macallinku waa bare 10% ayuu leeyahay 90 kale waxa iska leh ardayga. ugu dambeyntii ardaydii kaalmaha hore soo galay ayaa halkaasi lagu guddoonsiiyay abaalmarino loogu talagalay galaasyo cusub ayaa la qaadan doonaa isdiiwaangelintuna waxay ka socotaa maxadka baytul macmuur warbaahinta Cishqi TV Boorama.